بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله صباحكم ومساءكم ولياليكم أينما كنتم وحيثما حللتم. ولا سوماليد ميلاد جوجتان بإلهي سبحانه وتعالى إذا كان ما يلو عدي دبنبك الله كقاضو عدي دن الله وفي أنت بهن الله ديقو أنت بكت الله بوكسي أنت دمتي الله ونحرستو والدين تنا الله ونحرستو أننا الله نوغدب نحرستو dalka dadka diinta iyo dawladnimadaba Ilaahay subhanahu wa ta'ala inoo badbaadiyo. Marka ugu horeysa waxaan ka tacsiyeenayaa cid alla cidi ku dhimatay qarxi hotel Villa Rosa oo hadeero aan clipkan duubayo ay rasaastu wali dhacayso. waxaan hubaa inta la sheegay wiilkaas baraha bulshada la soo galiyay Maxamed Sayid Allah u naxariisto inuu dhintay baa la filayaa. waxaan hubnaa oo dhaawac ka mid ah laba nin oo madaxa wasiir Doodije oo la geeyay hotel Isbitaal Digfaar iyo agaasime Cabdullaahi Bashiir oo ahaa agaasimihii waaxda maaliyadda madaxtooyada Soomaaliya ee hore ee mar dhaweyd xilka laga wareejiyay. labadaa nin Ilaahay subxaanahu wa ta'ala iyo intii kale oo dhaawaca Ilaahay caafiyo subxaanahu wa ta'ala degdegna Ilaahay u boogadhayo. cid alla cidii ku dhimatayna Ilaahay subxaanahu wa ta'ala hu naxariisto. عدي وكوحي لودينا إلهي سبحانه وتعالى عول خير قبها هكسيه. سيجارة وحان إلهي كبريها إنه كبد باديو ترين كيجو رنتي عادو كعسين هاي مدحوينها ومضى الصوماليات أو جورجيسا أي حبض كسعته إلهي وحكومة بادية أنت بدن مدحتو يدا دربي قاعد وكوريكسن runtii waxaan rajeynayaa Ilaahay subxaanahu wa ta'ala dadka madaxda ah oo ay rabaan nimankan u socdaan inay ka dhigtaan waxbaan si ay u wiiqaan dagaalka iyaga ku wajahan inay magaalo madaxdii ay ka dhigaan weerar iyo madaafiic iyo dagaal rasaas iyo qarax iyo ay ka sameeyaan. ujeedka ay leeyihiin waa inay culayska jiida hore ka haysta ay iska dabciyaan iyo inay isu muujiyaan inay weli joogaan. Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ka badbaadiyo madaxda شدة الشركة أيضا الله كعلي يجا الله كعلي سبحانه وتعالى. أنت أمريكا كجود سجود مجال أمني جدي فروق بحي. وحارك تري ضد قيل غيلية أو حلقي فرماجة قيلين تري أو قبيلين تري أمني مجال هذا. ميت كان مدح كسيدنا. سؤاله ويديني وحوي محايس بدري. ويكسي درت. أنتي هراء بيكسي درت. تصالي يربان الدسينية. waagii hore ilaa hotel Jazeera iyo baabuurtaada iyo taxigaaga iyo baa lagu tagi jiray. lamar afar baa laga kala wareegaa. intaasi waa xanibaad hor leh. mararka qaarkood mootooyin lagu leeyahay la raacaa. mararka qaarkoodna waxaa lagu khasban yahay oo lagu tagaa ilaa Sahal kadibna Sahal baa ku khasbantaa inaad raacdo. xataa xaafadahaas airportka waa lagu khasban yahay in la raaco. wax ka qaylnaya ma aragno oo arintii boonbooninayo meydkan madaxa ku sidana maxba isma bedelin aan ahayn inay ka sii dartay. waxa kale oo tusaale idinku filan bajaajti waa la joojiyay. midnight marka la gaaro waa la xirayaa haday xataa soo baxaan ay shaqeeyaan. awalna habeenkoo dhan bay shaqeyn jireen iyo maalintii oo dhan. haye wax qaylinaya ma hayno. marka dadkii dawladda ku taagnaan jiray hore oo intaas 24 saac dhihi jiray dib bana la ku hayaa magaalada oo qaylin jiray te dibkii waa laga sii daray. maxay u hadli waayeen? taksiya loo xiray habeenkii suuqa, laakiin waxa dhacdayba in dadkiiba uu socon la yahay oo 11 ka fiidnimo hadii 5 saac habeenimo la gaaro magaalada bay cidla tahay. hoteeladii ay faraaqay yihiin dib badan uu jiro. ma garanaysaa amniga magaaladu faruuq ka baxay. waa filaynay mahad salaad inuusan amni ka shaqeynayn, inuusan aqoonteeda lahayn, inuusan dan ka lahayn, inuu ma garanaysaa shaqaysanayo shaqo tag yahay, inuu mutaham ku yahay inuu isaga laftigiisu ay dhici karto inuu fududeynayo qaraxyada iyo dhibaatooyinka ka dhacaya meesha. qaraxan maanta dhacay shaki aad iyo aad u weyn ayuu keenayaa. wuxuu ku keenayaa godka Jilcow. godka Jilcow baa gaari lagaga degay baa leeyahay oo ciidamadu ay kaga degeen hortiisa oo hotelka albaabkiisa ay gaari kaga degeen. labada dhinac ee wadadu ay marto dhinac 4 isbaaro 4 checkpoint buu soo marayaa suurtagal maaha. dhanka kale ee godka Jilcow
وأن ضد كسر بحي كره قد كجلعو waxay kaloo ku soo dhaafi karaan checkpoint-yada ID baabuurka halka imaan karo Cabdibilaha ahi waa baabuur ama madaxtooyada laga leeyahay ama ay nisa leedahay marka shaki badan buu keenayaa oo aad iyo aad u badan qaraxan meesha ka dhacay waxaan rajaynayaa xasan inuusan waxba ka baran qaraxyadii loo geystay oo la rabay in lagu dilo isaga madaxtooyada xilligii hore ee Mahad Salaad Chief of Staff ka ah isla dadkii baa jooga sidii bayna u dhacaysaa hoteelkan wuxuu ka mid ahaa meelaha ugu amniga badan xilligii dawladda Farmaajo marka in halka loo soo istaago madaxtooyada madaxweynaha gurigiisa xabadu ku socoto waxa weeye laamaha amnigu farahay ka baxeen madaxweyne haddii adiga aad muhaddad tahay oo khatar ku jirtid bal ka waran dadka shacabka madaxweyne adiga haddii khatar ku jirtid وأنا هذا ما أنت أنا ودناها فرتك وهاي إن مدحويننا لكدلوا أنه قرعنا هاي بل كورن تدك كلاء وشعبك اريا ذا وحي هيد يقول قالها يقول عكت بدن حاجة هوتيل كاس مربع لو بقول يكونتون هبينك اللي وساحن جري لا بقول يكونتون موجودة مركا حالته وحنتها قولي كل كان هوتيلك و لسمن لنا مدحتوي ولسمن دربي مدحتوي شنطة لابو وجرها hoteelka markay kor fuulaana guriga madaxweynaha toos bay ugu jeedaan oo deerkiisa kor bay ka soo arki karaan marka darbiyadaas shubka ah oo dawladii hore ay ka tagtay dawladda Maxamed Siyaad Barre Allahu naxariista ay dhistay oo baa lagu baxsaday ilaahayna waxa ka baryayaa subxaanahu wa ta'aala inuu badbaadiyo madaxweyne inta hadii lagu soo jirsan karo si dawladdu u maamulaysa amnigii faruhu ka baxay Mahad Salaad ma aha ninkeedii intii la rabaa lagu sheegay kor waa lagu sheegay hoos waa lagu sheegay asagu inuu rabo inuu ku badbaadiyo waa dhici kartaa laakiin uusan aqoonteeda lahayn waxa kale oo dhici karta inuu isagu qayb ka yahay al-shabaab sida lagu tuhunsanaa dawladii hore ku tuhuntay xataa hadduu bari yahay ma hayna soo dhaweysatid haddii base intaas oo shaki oo intii hotel Xayaad iyo wixii ka dambeeyay intaas qarax iyo dhibaatadaas iyo kanoo hadeer shaki ah oo halka baabuurka imaan kara uu yahay uu kaliya baabuur ama madaxtooyadu leedahay ama baabuur ay nisa leedahay iyo in lagu soo gudbay saraakiil iyo dad la garanaya lagu soo raacay qof qoriyo wata halka ma soo mari karo dad lugeynayo qoriyo wata halka ma mari karaan meel ay mari karaan ma marka madaxweyne halkaas waxaan ku leeyahay arinta dib ugu laabo waa kugu la talinaya amnigaagaan rabnaa amniga dadka ku dhow area-daas joogaan rabnaa amniga magaalada Muqdisho rabnaa waxaan rabnaa magaalada Muqdisho amnigeeda inaad dib ugu laabatid hadeer ma haysid كلها أنت مركز قد بقطب خلبات قبله شلي سعبيني وقيليني هدا أركتين يسعديه ده هاد ليسي لبضبها وحا اللي بسناين وحليها أورنج در أورنجيا IOM إيو نيو أنتونا وحي إعلاميين أسبوع دان إيه ماركتي تبنبريو إلى بيشا صوصو اعتبرتك دحدة هذا بلوغ هذا أورنج week ميا أورنج 10 days ميا مثل دوري تون عشو شان الله تكي نوفمبر لقبل هذا بيشا دم دحدة أو أورنج حالا قوة أورنج لوغ شانيا وهذا كيسان ميرول با أورنج بالله وحال ليه واحد جراه gender based violence حبت هذا دعيسو قرحيدا دعيا ما هوين با لا بيكسنيا what is it haween baa la beegsanaya oo Soomaaliya haweenka beegsata baa la rabaa in dadka laga dhaadhiciyo Soomaaliya qof walba la beegsadaa oo la dilaa rag baa la laayaa inta badan dhimashada ragga u badan boqolaal jeer dhaawacana iyaga boqolaal jeer u badan laakiin dadkay ka mid yihiin haweenku laakiin si gaar ah beegsi haweenun ina raadiya haween inagu raadiya aan layno haweenan dhibaateen inagu raadiya waxaasi ma jiraan waxa baroorta orgiga ka weyn meesha loo socdo waad garanaysaan waxa loo socdaa xeerkaas ay ku dhaarteen laba qolo ku dhaaratay qolo waad garanaysaan wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Norway baarlamaanka intay hor istaagtay tiri 100 milyan baan ku bixinay waana noo shaqeyn waayo baarlamaankana dhifiid gareeyay laakiin ballan baan ku qaadnay inaan maalin marsiino maray ahaato waa marsiinayna xilligaas waxay ahayd 2020 gabadhu
orange bay huwan tahay gabdhaha sacbinayaan orange bay qabaan kulligood soo ma arkaysid marka waa project mashruuc lacag lagu soo qaatay oo kale oo dhaqankeena duulaan ku ah arrintaasna lama aqbali karo wax la yeeli karana maaha wax loo dulqaadanayana maaha qolada IOM waxay soo gelisay gabar orange qabta oo Soomaali ah oo af Soomaali ku Ingiriis ku hadlaysa oo leh dhaqanka Soomaaligu wuxuu saacidaa gabdhaha in la kufsado iyo gabdhaha in magaranaysa ay victim u ahaadaan rape iyo kufsi iyo magaranaysa iyo violence in dib loo geysto waa ku yaacnay Twitter kaanu u sheegnay inay tahay edab darro disgusting waa delete gareeyeen oo waa ka saareen laakiin waxaa ku jirtay tweetka ay ka saareen meesha waxaa ku jirtay sharcigii jinsiga waa in la baasiyaa hadalkaasi fiican u dhegeyso sharcigii jinsiga waa in la baasiyaa Sacdiya maxay tiri kelmaddii ay wasiiradu tiri IOM-tuna ay tiri bay iyaduna tiri waa baasinayaa ama xamar baan ka tegayaa warkaa waa maqasheen xataa waa gaaloobaynaa bay tiri kelmaddaas marka inta aan kaga tago waxaa la yaab leh Khadiijo waa survivalist waa naag aad u taqaan sida kursiga loo ilaashado wayna ka diricsan tahay qofta liyaa Sacdiyo waxaa dhaqan u ah Khadiijo oo lagu bartay dadka figuriska ah oo 0.5 ka ah inay baska hoostiisa ku tuurto intay u dhigto baas goortu qofku banooniga laado oo dalaq ay siiso inay uga baxdo waxay tiri wax diinteeda ka soo horjeeda iyo dhaqankayaga anagu ma rabno mana wadano mana keenayno good sidaa ku soco Khadiijo daacadna ha ka ahaato kolley Sacdiye aastay yaa kuugu xiga waa su'aal qodobka labaad Zakiya oo hadlaysaan dhageystay Zakiya waxay tiri anaa xiraya qof walba oo awood u leh ma la oran karaa haweenkii iyagaaba awoodii haystee booliiskii magaalada dhanba dhinac haystee maxaa ku gaara waay loo bumbuunay ma la xiro sharciga la raadiyay waxay tiri Zakiya sharciga hala baasiyo sharciga la baasiyaa soo adigu madax ma tihid oo sharciga ma haysatid kitaabka Ilaahay soo kuma xukumi kartid xabad soo kuma dhufan kartid anaa idin ila soo xiriira isoo raadiya haddii aan awoodii gacanta lagu geliyo adiga oo ku siinay haddaan nahay ragga Soomaaliyeed adiga awoodii ku siinay generaal aad tahay oo aad xiran karto qofka doontid sharciga ka maqan islaamna aad haysatid oo kitaabka Ilaahay uu leeyahay qofkii fasaad sameeyo dila suuratul maa'ida haysatid sharciga uga baahan tahay Norway iyo gaalada muxuu yahay Zakiya arrintaasi waa arrin runtii baroortu orgiga ka weyn laakiin waxaan idin ballan qaadayaa biidin Ilaahi tacaala sida aan naqaan oo Soomaali ku naqaan Soomaali waa la adoonsan kari waay iyadoo gumaysi uu joogay iska dhacsheen dhagax bay iskaga dhacsheen iyadoo aan qore haysan dawladdii ugu horeysay oo Afrikaana oo diyaarad lagu weeraro baan nahay waxaan nahay dad dignitigooda iyo sharaftooda iyo cirdigooda difaacada oo ku dhinta qabaa'il baa isku go'a inta gabar wax la yeelo gabar agtayada hoostayada gabar laguma taaban karo naftu ka xigaa qofka Soomaaliga ah ninka Soomaaliga ah naftu ka xigaa in gabar ehelkiisa oo caa'iladiisa wax la yeelo inuu dhinto ka xigaa in la bahdaleeyo oo la dhibaateeyo oo xumaan lagu sameeyo marka waa ku celinayaa mar kale abadan waxaani ma shaqeynayaan ha ka yaabin inaanu baqno aamusno ama nahandada ama noo dhaarta sideedaba alxamdulilah ilaahay nicmadiisay ka mid tahay inaan meel amniya anigu joogo hadli karo waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed inaan u sheego aaway culimadii kale baa la leeyahay wadaadkan kaliya hadlay alxamdulilah Sheekh Bashiirna waa hadlay rag kalena waa hadleen laakiin wadaadada waddanka jooga in badan oo ka mid ihi ma haystaan jaaniska aan haysto iyo amniga aan haysto iyo ma garanaysaa alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin ma haystaan dhiirashaduna waa wax kale consequences ma jiri karaa anoo halkan jooga dhib ma la ii geysan karaa of course haye laakiin aniga in dhib la iigu geysto anoo ilaahay diintiisa difaacaya waxa ka fiican oo aan heli lahaa maxay tahay what is it ma jirto nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri afdalu aljihaad
كلمة حق عند سلطان جائر. سلطان عدالة درن أو أد كبقيس إنه كدلو أو أد كلمة حق أكتر هذا بأهف جهاتك وفضلك بدن ما أنت خنيسين تو كحوق بدين عد كسته dadkii kala gacan ku gabada caalamkii oo dhan bay buli gareynayaan oo ay calaadinayaan oo ciirsanayaan maba laga hadli karo waxa aan ku jirno qolada iyo qurbaha joogta war ma haysaane hadaatiin reer Soomaaliya ka kaca qodobkaasna intaasan oranaya qodobka ugu dambeeya imaaraadku waa front kale inuu ku furmay albaab inuu ku furmay way hadii aynaan feejignaan hadii aynaan digtoonaan haddii aynaan ka hadlin oo ka qaylin oo ka dhawaaqin nin kasta oo odaya nin kasta oo xubinka ah xubnaha salaadiinta la yiraahdo Soomaalida meel uu joogaba ilaahay wuxuu subhanahu wa ta'ala wa idha tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlika al hartha wan nasla mar haday awood helaan oo ay qabsadaan meesha waxa ay meesha u bedelayaan fasaad ay ku fasaadinayaan dhirta iyo dadka nasligu waa taranka waxa la wixii taran leh waa burburinaya waa baabiinaya kufsi iyo waxa aad ka sheekeynaysaa waxa maaha rag iyo dumar baa la kufsanaya qadiyadaas absolutely waa inaad odayow ka dhidhida oo ka istaagtaa qodobka ugu dambeeya waxa si aan caadi ahayn uga socda gobolada waqooyi hargeysa ay ugu badan tahay khaniisayn dadka la khaniisaynayo lacag lagu bixinayo xisbi dhan baa xogayoodi xiran yahay mawjada dad aan 100 nin wadaado hadlayo wuxuu yiri 106 qof baa u xiran buu inta kale aan wali la qaban ba ka badan waxa la ii soo sheegay oo nin hargeysa dhex jooga oo ka yimi qurbaha ii soo sheegay halkii video oo laba nin isfuulaysa ay soo duubaan 100 waxa lagu bixinayaa $1,600 si baan baa loo faafinaya hadhow maxaa ku xigta in lagu yiraahdo xisbigaas maxaa loo dhexgeliyay waxa loo dhexgeliyay in la yiraahdo xisbi waxa jira minority war wallahi war ma haysaane caruurtii baanu iskuul u laanahay online baa lagu dhigtaa guryahaanu ka furanay school home schooling wax la yiraahdo guriyihii baan caruurtii wax ugu dhignaa iskuulada Toronto waxa laga furay iyo Ontario iskuulo yar yar oo dadka sidii dugsi quraanka iyo kale inta meel la kireysto ciyaal 30 kontana halka loogu dhigayo oo dawladii markaa lagu khasbay leeyahay curriculumka iyaga baanu ku baranayna halkaan ku baranayna nasiya noo aqbala oo dagaal baan lagu la jiraa iyagana in la baabi'iyo war ma haysaane dalka waa lagu soo duulay Soomaaliya dhaqanka in laga galaa ballan lagu qaaday laba meelood baan laga galayaa meeshaas makhaaniida iyo khaniisiinta iyo haweenka in guryaha laga saaro kulligood laga dhigo ciyaala suuq iyo duur joog gabadha Soomaaliyeed caalamka oo dhan bay bedeshay marka haw qaadanina ay sahlan tahay gabar xijaaban oo caalamka maraysa qarbiga Yurub iyo North America Soomaali baa ugu horeysay gabdhaha kale oo muslimiinta imaan jiray dadkooda iska dhex gali jiray marka colaadda iyo cadaawada loo qabo ay la yimaadeen qurbaha in xagga lagu soo baabi'iyo gurigoodi laga soo baabi'iyo ilaa halkan dadka jooga lama taaban kare ayaa go'aan lagu gaaray marka hurdada ka kaca yaan dadka la idin ka baabi'in wadaadada qadiyada ka hadleen khaniisiinta ka hadleen waliba wadaadada Hargeysa jooga ha ka hadleen baan ba ka socota Hargeysa lacag baa saa loogu daldalaya waxa la keenay dad Ethiopiana oo iyagu khaniisiin ah oo khaniisaya dadka oo lacag siinaya marka sidaa loo dhaamo dalka maanta maalin aan ahayn iyo meel aanan gaari karin maray joogtayaan la isweydiin haddeer hal qabto fitnadu waxa la yiri madax la qabtay leedahay laakiin daba la qabto hadday ku dhaafto ma soo qaban kartid laakiin marka hore waa celin kartaa waa la joojin karaa hal la joojiyo hal laga hortago hal la isugu tago waxaan maqlayaa sharciga jinsiga yaa waxa laga baasiyay ama laga hadlayaa ama lagu sharciyeynayaa koonfur galbeed madaxweyne lafta gareen waxa siiyay agtaada ka dhicin nin sharaf laan kugu ogaayo qiimo leh agtaada waxa siiyay ka dhicin Allah idin xifdiyo kulligiin khayr badan baa idin rajeenayaa billahi tawfiiq assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh